shirkan jiraayid maanta waxaan u qabtay inaan kaga hadlo tafatirihii guud ee bulsha TV Khadar Macalin Deeq oo xaalad caafimaad u jiifa dhakhtarka ama emergency-gaba saacado yar ka hor daqiiqado yar ka hor baan ka soo baxay dhakhtarka weyn ee Hargeysa Khadar Macalin Deeq muddo kabira ayuu u jiifaa xanuun iyadoo xaaladiisu mar ka sii dambaysa ay sii cuslaanayso waxaan aad uga xumahay muddada bisha ah ee uu xanuunsanayay inaanay ka soo agwareerin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan maanta doonayaa marka halkan inaan baaq ka diro waxaan u dirayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo aan leeyahay suxufiyiinta wasaaradda ka tirsanba markay wax yar ku dhacaan waa gaadhaan oo emergency-ga markaba ugu tagtaan iyadoonay saacada ka soo wareegin uma dhagan nugulidin saxafiyiinta madaxa bannaan leh waa maxay sababta tolo dhaqanka wasaaradda warfaafintu waxay ka mas'uul tahay qaranka mas'uul uga tahay dhammaan warbaahinta qaranka iyo saxafiyiinta Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay halkan aan uga dirayaa wasiirka xigeenka iyo agaasimaha guud warninka Khadar aad iyo aad buu xanuunsanayaa degdeg u gaara degdeg ha loo gaaro dadku wuxuu isu taraa intuu nool yahay buu isu taraa ururka Soljana waxaan leeyahay idinka ka mas'uula dhammaan warbaahinta Soomaaliland ilaa imika waxa ayaan daraa inaydan dul istaagan xitaa arintaa waxaan leeyahay wax ka qabto u taga oo wixii aad tari karaysaan degdeg ugu tara ninkaasi dalka gudihiisa waxba lagama qaban karo marka xaaladiisa soo wareystay xanuunkiisu waa maqaarka dhakhtar maqaaro gaarana ma lihin ninkaas wuxuu u baahan yahay dhakhtar daweed buu u baahan yahay waxaan ugu baaqayaa xukuumadda oo ugu sarreeya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan wasaaradda warfaafinta ninkaas wuxuu qabasho u baahan yahay waxaanu ka warhaynaa inuu yahay wariye dhexdhexaada ku sifoobay dhexdhexaadnimo akhlaaq iyo duun wanaag wariyaasha Soomaaliland lagu jeceliyay buu ahaa nin dhalinyaro ah buu ahaa waxaan leeyahay ninka arrinkiisa wax ka qabta oo degdeg wuxuu ka qabta degdeg wuxuu ka qabta waan leeyahay maanta codsigaas uma doonayaan inaan diro iyo baaqa iswan oo hay'adaha ay khusayso aan u dirayo